السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada channelkayga magacayga waxaa waaye Tutoresa Ikran. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago qaabaha ugu wanaagsan ee wax loo barto. insha Allah qodobyadan aan idin sheegi doono waxaa waaye kuwo oo dad badan ay kasoo hadleen, cilmi baaris laga sameeyay oo maanta la aaminsan yahay waaye. insha Allah dad badan ay u shaqeysaa jirto, waxaan rajeynayaa inay idin shaqeyso. meeqa jeer aan maqashay study smart not hard, يعني si aqliyeysan wax u baro, adoo juhdi badan kaa bixin si aqliyeysan wax u baro. markii lagu dhahaayo waxaa laga wadaa inaa isdaalisid oo waqti badan iska qasaarisid, waa laga fiican yahay. adoo waxaa fiican si aqliyeysan wax u baratid, wax badanaa ka faa'iideysaa haddaa aa maxaa lahaa ii sheeg aa tan aad dabaqdid. kow waqtigaaga kuu save gareysmaayo, labo energygaaga kuu save gareysmaayo. si aqliyeysan haddaa wax u baratid aa isku diyaarisid. professor oo psychology aa oraahdan dhahay, wuxuu dhahay wax kasta oo lagugu ciqaabo, wax kasta oo dhibaato u aragtid, wax kasta oo ciqaab u aragtid ma sameyneysid, wax kasta faa'iido u aragtid, wax kasta aa ka helaysid waxyaabo adi faa'iido kugu jirtane waa sameyneysaa. dabeecadda bini'aadanka saas ehbo. marka anaga Soomaali haddaan nahay, dabeecad waxaan leenahay ilmaheena waxaaba uga soo bilaabnaabo dugsiga ayagoo dhiganayo in la garaaco, waxbarashada lagu garaaco, xanuun la tusiyo. taas waxay ka dhigan tahay ilmahaaga inaad ku tababaroosid, hadaa waxaaga baraweyso waa lagu garaacaa. ilmihii marka wuxuu uu maxaa lahaa sheeg aaminayaa haddii uu waxaas uusan baranin in la garaacayo, ciqaab waaye. marka horta kow wax jeceela ma u heenayo waxbarashada. waxbarasho dhan adduunka ugu nacaa, qur-aankana wuu nacayaa. soo ilmahaaga saada qur-aanka u nacsiinin maxaa la xitaa waa inaad ka ilaalisid garaacisi. marka hadhow markuu gaaro iskoolkii, dugsi sare, dugsi maxaa la sheegay, dugsi dhexe, dugsi sare, jaamacad, wax isgaraacaya ma jiro. qofku dhahayo maanta hadaa waxaagii soo samey weyso waa ku garaaca ma jirto. marka hadhow cunugaas wuxuu aaminayaa, awalba wuxuu aaminsanaay waxbarashada waa neceb tahay, waa wax dhib badan oo lagugu garaacayo, waxna ha baranin is aaminsiina cunugii. marka taas sheeg maxaa la hadhow dhibaatay keenaysaa cunugaas, ardaygaas inuu noqdo arday aan dadaaleynin, because dadaalkiisa dhan awalba wuxuu ahay yaa lagu garaacin. ma fahamtee? okay, maxaa sameyn kartaa marka? waxaa sameyn kartaa cunugaaga inaad farxad gelisid marka horeba. hadduu jus qur'aan uu soo dhameeyo, wuxuu jecel yahay usoo gad. jus ku xig hadduu u sameeyo, meel u wad, soo ciyaarsii. waxaa sameysaa wax ilmahaaga farxad gelinaya samee. hadhow maxaa la inaad ku faraxdayna u sheeg, yacni inaa adiga aa ku faraxsan tahay, maasha allah jusaa soo dhamaysa maanta, waa in wax lagu sameeya istaahishaa. ma fahamtee? abaalmarina istaahishaa. marka haddaa u sheegtid ciyaalkaaga abaalmarina istaahishaa, dadaalkii dadaal kasii dheer uu sameynaya. ma fahamtee? adigooba dhihinba maxaa la ku garaacin, asagaa soo fadhiisanaa ciyaar marabii kuleeyani, waxaa rabaa meeshasina ay geesidaa rabaa anaa baranayo. ma fahamtee? marka waxaa sameysaa ilmahaaga markaa saas ku tababartid oo kale, hadhow ayaga markay weynaadaan ee heer jaamacad gaaraan, uma baahno dhiirigelin kale. dhiirigelin waxaa ugu filan kaalinaa la galaa. ma fahamtee? kaalin koowaadaa rabaa inaa galo, kaalin labaadaa rabaa inaa galo. cunugii waxaa galayso macalimiintaada maxaa la kugu faaneyso, waalidkaagaa kugu faanayo, like asaga waxaasaa markaas muhiim u noqonayo. ma fahamtee? inuu faa'iidada helo aa muhiim u noqonayso. markasta dadaalkaas wax uu raboon doono inuu markasta sameeyay noqonaysaa. marka aan wax baranayo kale, waxaa nafteeda u sheegaa isbuucan haddaa aan maalin kasto 5 saacadood aan wax barto, waxaas aa rabana si fiican aa u barto, isbuuca maalmaha fasaxa waa inaa nafteeda ka farxiyo. marka waa inaa adiga is dhiirigelisid oo dhahdid maanta maxaa u baahanahay inaa maxaa lahaa isbuucan oo kaleeto inaa dhowrkaas saacadood aan wax akhris u fadhiyo, waxaa sameyn doonaa waxaas iyo waxaas oo waxaa jeceshaha inaa xasuusatid inaa break qaadatid. ardayda markay baranayaan cashar waxay sameeyaan saacado isdaba joogay bartaan. waxaa la ogaaday ardayda markay sameynayaan waxbarashadoo kale, focuskooda inuu joogo daqiiqado kooban, 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo inta u dhaxeyso badanaa uu joogaa. marka adi ahaan waxaa lagaa rabaa inaa is ogaatid focuskaaga ilaa meeqo uu joogi karaa. waxaa sameyn kartaa inaad timer meel dhigatid, waqtiga intaa qabatid aa fiirisid, aa wax aqris bilaawdid. markaa aragtid wax aqriskaaga inuu hadda wax micno sameynoonin, uu maxaa la dhahaa ishaga iska aqrinoosid bas, waqti dhumis waaye. marka waxaa sameyn kartaa waa joojinaysaa, waxaana sameynaysaa haddii 20 daqiiqo noqotay
focuskaaga intuu joogay hadday 30 daqiiqo noqotay focuskaaga intuu joogay inaad break qaadatid adi waxaa jeceshahay aad samaynaysaa 5 daqiiqo xitaa waxaa la ogaaday dadka inaysan u baahnayn 5 daqiiqo ka badan nasasho hadday 30 daqiiqo wax aqrinayeen 5 daqiiqo ka badan u baahno marka waxaa samaynaysaa intaad 5 saaco isku xigto wax aqrin lahayd focuskaaga saana u soconaa ma fahamtay wuu sii daciifa marka waxaa baratoo dhan wax ma ka faa'iidaysid marka intaa waqtigaaga saas maxaa la iskaga dhumin lahayd waxaa u samaysaa 30 daqiiqo 5 daqiiqo nasasho 30 daqiiqo 5 daqiiqo nasasho 30 daqiiqo 5 daqiiqo nasasho 5 saac oo isku xiran asaas u baranaysaa wax markaas waxay ka dhigan tahay adigoo wax badan faa'iiday marka waxaa la ogaaday ardaydii oo saas sameeyeen inay semester gudihiisa kaalimo ku galeen ee horumar yani ee ka arkeen faa'iido markay dabaqeen tilaabooyinka faa'iidada ee leedahay inaad break qaadatid maxaa waaye marka cilmi baaris asagana laga sameeyaa jirto kow xasuustaada fiicnaanayso labo enerjigaaga soo laabanayo nafisaa soo qaadatay saddex maxaa la dhahaa next time markaa fadhiisatid daqiiqada ka badan inaad fadhin kartidaa laga yaabaa afar stresskaaga yaraanayo sababtoo markaa cabaar fadhisid jirkaaga xitaa wuxuu u baahnaanayaa inaad dhaqdhaqaaqid xoogaa marka inaad kacdid oo jawiga soo bedelatid stresskana wuu kaa yaraanaya ma fahamtay marka faa'iidooyinkaas oo dhan ku jirta inaad break qaadatid marka wax baranaysid waxaa fiican inaad samaysatid meel aad wax ku baratid miis inaad yeelatid miiskaas inaad markasta aad fadhiisatid aad rabtid inaad wax aqrisid ma fahamtay jawi degan ah oo ugu talagashay markaa rabtid inaad wax aqrisatid inaad tagtid cilmi baaris waxaa jirta loo sameeyey dhowr arday waxaa loo sameeyey ardaydaas ardayda qaar waxaa loo sameeyey meel ay wax ku bartaan waxaana loo dhigay nal wax lagu barto nalkaas waxaa lagu dhajiyey nalka waxbarashada wax kale ma loogu talagelin ardaydaas waxaa lahay markaa rabtiin inaad wax baratiin nalkaas daara markaa waxbarashada dhamaysatiin damiya ka kaca meeshaas markastoo saas sameeyaa la dhahay semestera marka loo fiirsaday semesterkaas waxaa la ogaaday ardaydaas oo yeeshteen habitkaas ama maxaa lahaa dabeecadaas oo markastay wax baranayaan nalkaasay daarayaan inuu focuskoodii fiicnaaday wax aqriskoodii fiicnaaday waxbarashadoodii fiicnaatay hadhowne markii imtixaanka la gaaray ee kaalimo ka galeen meesha ardayda kale oo ku dhaqmin maxaa la dhahaa sheeg sidaan kaalin aysan ka gelin taas waxay ku cadeynaysaa inaad samaysatid meel wax lagu baranayo inaad samaysatid meel ku qaas ah markastana aad ku laabatid meeshaas maskaxdaada waxay u sheegaysaa xilliga waxbarashada waaye maskaxdaada waxay siinaysaa focus iyo dhiirigelin inaad wax baratid qodobkeena xiga waxaa waaye haddaad dhahdid maanta oo dhan cashirka waa aqrinaa oo fikrad inaad ka qaato ma isku dayaay waxaas ma baran kartid inaad baratid waxyaabaha qaar waxay ku habboon yihiin in oo laga haysto fikrad waxyaabaha qaarna waxay ku habboon yihiin in oo la xifdiyo maxay ku kala duwan yihiin say ku ogaan kartaa waxyaabo qaar oo inaa xifdisid u baahan waxaa waaye magac oo kaleeto for example hadda laf ka soo qaad lafta inaa xifdisid ay kaaga baahan tahay magaceeda inaa laf ee tahay laakiinse lafta see u shaqeyso haddaad dhahdid waa xifdinaa waa iloobaysaa maskaxda ma hayn karto laakiin haddaad dhahdid lafta see u shaqeynayso inaa fahmaa isku dayaa oo fikrad aa ka haysto ma iloobaysid casharkaas weligaa ma iloobaysid xitaa yacni waa waxyaabaha waxay ka mid tahay maskaxdaada hadday hal mar galaan ay saas ugu jirayaan markaa fikrad baratid waxaa waaye wax ka faa'iido badan inaad fikrad ka haysatid waxaa baranaysid ma jirto haddaad dhahdo waxaa baranaya waxaa u baranaya bes xifdiyo xifdis waxaa waaye meel dheer ma ku aadaysid laakiin markaa wixii aad fikrad ka haysatid waxaa waaye ma iloobaysid hurdadaada inaa ka fakirtid hurdadaada aad iyo aaday muhiim u tahay weliba arday haddaad tahay haddaa ogaan lahayd faa'iidooyinka ku jirto inaad seexatid oo nasatidna markasta waxaa ka taxadari lahayd hurdadaada iyo nasashadaada marka ugu horeysa waxyaabaha oo hurdada ay kaa caawinayso waxaa ka mid ah kow in oo maskaxdaada markaa seexatid ay sameynayso ii sheeg wixii aad baratay maxaa lahaa dib habees ku sameynaysaa ma fahamtay dib habeesa ku sameynaysaa kabacdin waxay gelinaysaa memoriga dheer memory waxaa jirta waxyaabo la xasuusto oo hadda iloobaysid iyo waxyaabo oo memoriga dheer ku galaya jiro waxaa jirta wax la dhaho rem hal saac iyo bar camal waxaa hurdo oo sax ma ku jirtid laakiin hal saac iyo bar iyo wixii ka dambeeya hurdo waxaa ku jirta sax ah waxaa loo yaqaanaa rem wax la dhaho marka maskaxdeena meel ka mid ah
oo la dhaho hippocampus waxay u qaabilsan tahay inay hurdada maxaa la dhahaa waqtiga hurdada oo kale inay emotionkaaga dareemahaaga inay saxdo waxay u qaabilsan tahay inay maxaa la sidoo kale wixii aad baratay inay inta isku maxaa la dhahaa isku aadiso xasuusta ay geliso taasna waxay ka qayb qaadanaysaa xasuustaada mar waxaa jirta aqriyay qofka markuu hurdaayo waxbuu baranayaa waxay ka dhigan tahay hippocampus-kaas shaqada uu qabanayo waxaa waaye macluumaadkii maanta oo dhan uu helayay uu intuu isku aadiyo uu maxaa lahaa memoriga kuu gelinaa waxay kaa caawinaysaa in oo memorigaagii xasuustaadii inaad wax soo xasuusatid inay ku fiicnaato dadka ma arkin oo hurdo la-aanta ku dhacday waxa ay ka cabtaan ma aragti badanaa dadka hurdo la-aanta ku dhacday badanaa waxay ka cabtaan xasuus la-aan xasuusta iga tagtay xasuus ma haysti waxaas ma xasuustay waxa u badan dadka oo waayeeladaha u badan haddaa u fiirsasid hurdo fiican ma hurdaan haddana ilowshahoodana wuu badan yahay waxyaabaha ma arkin oo markaa rabtid inaa xasuustaada ee fiicnaato lagaa rabo inaad samaysid waxaa waaye inaa hurdo fiican aa hurdid 7 saac ilaa 8 saac inaa hurdo fiican aa heshid oo maxaa la dhahaa jadwal aa samaysatid xilli fiican inaa hurdid oo xilli fiicanna aa soo toostid marka aaday muhiim noogu tahay saa uga faa'iidaystid maalinkii maadaama nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhahay ummadayda subaxii baraka ugu jirto ma fahantay marka inaad subax xilli hore soo kacdid oo danahaaga aa qabsatid faa'iido weyn aa kugu jirto baraka kugu jirto in aad wax la dhaho samaysid active recall waxaa waaye inaad soo xasuusatid wixii aad baratay for example macalinka wuxuu ku sharaxaa markuu sharaxaadiisa uu dhameeyo waxaaga qoratid kaligaa marka istijaabi inaad soo xasuusan kartid wuxuu macalinka sheegay adi naftaada u sheeg markaas waxa adkaanayso cashirkaas adi naftaada aa ku celisa aa u sheegtay inaa iloodid wixii aa fahmi weysidna inaa macalinka u tagtid oo weydiisid isla markaas sababta taas waxay kaa caawinaysaa sidoo kale xasuusta dheer inuu kuu galo macluumaadkaas ma iloobaysid si fudud sidoo kale waxaa samayn kartaa qofaa u sharaxi kartaa waa sida ugu fiican wax lagu barto cilmi baaris waxaa jirtay oo la sameeyey waxaa la dhahay waxaa la kala qaybiyey qofka markuu uu arday wax baraayo qofka 3 siyaabood wax loo bartaa jirto 1 inaa aqrisid 2 inaa dhageysatid 3 inaa adiga qof bartid waxaa la dhahay 70% haddaa adiga qof bartid wax badana ka faa'iideysaa ma fahamtay 20% markaa aqrisida wax ka faa'iideysaa 10% markaa dhageysatid wax ka faa'iideysaa marka wax ugu muhiimsan oo cashir lagu xasuusto waxaa waaye inaad adiga naftaada u sheegtid ama inaad qof u sharaxdid maskaxda 2 siyaabood ay u shaqeysaa waxaa jiro maskaxda midka aqliga ku saleysan oo aqliga isticmaalayo iyo mid dareemo ku saleysan oo dareemahaaga isticmaalayo marka waxaa jirto marka adiga aa wax baranaysid oo kale maskaxda oo aqliga waxay ku dhahaysaa inaad wax baratid inaad dadaashid inaad horumar gaartid ma fahamtay laakiinse midka oo emotionka wuxuu ku leeyahay iska naso waa daalan tahay wax yar wax iska daawo labadaasay kala yihiin ma fahamtay aqliga marka waxaa lagaa rabaa mar kasto inaad og tahay adiga naftaada maxay kuu sheegaysaa sida uga hortagi kartid si aad u bilaawdid wax aqris ha sugin inaa lagu dhiirigeliyo wax aqris bilaaw saa dhiirigelin u heshid haddaa rabtid weligaa inaa wax samaysid ha sugin dhiirigelin intaa ka helaysid wixii bilaaw markaa wixii bilaawdid dhiirigelina hele inaa sii wadid waxaa la dhahaa qofka meeshuu joogo ama dadku ku dhex jiro ay ku xirantaa dadka adig ku dhex jirtid hadday yihiin dad wax bartaan dad dadaalayo adigana waa dadaalaysaa inaa wax sawiratid markaa wax aqrisanaysid uu wax ku dhibaayo uu jiro wax iska sawiro hadda taa kasoo qaadid for example carbohydrate ko kale carbohydrate meeqa calories uu leeyahay carbohydrate wuxuu leeyahay 4 calories see ku xasuusan kartaa haddaa rabtid inaa xasuusatid oo aadan iloobin for example waxaa sawiranaysaa carbohydrate maxaa ka bilowdaa c ka bilowdaa oo kilo aqrinaa maahano carbohydrate waxaa kasoo qaadanaysaa inuu kaar yahay camal inuu baabuur yahay camal and then meeqa luguu leeyahay 4 luguu leeyahay carbohydrate markii lagu soo hadal qaado waxaa sawiratay gaari carbohydrate gaari meeqa luguu leeyahay 4 luguu leeyahay carbohydrate waxay leedahay 4 calories saasaa ku xasuusanaysaa dadka qaar waxay samaystaan mnemonic oo shactire oo funny
qof walba wuxuu iska samaystaa, qof wuxuu iska sawirtaa, qof maxaa la dhahaa sheeg erayo iska soo maxaa la dhahaa qaataa, wixii markay tiro badan yihiin oo kale hal erayo oo kusoo xasuusan karo uu soo qaataa. marka waxyaabahaas oo kale waxay kaa caawinayaan xasuustaada inay aad iyo aad u fiicnaato. si kasto uu qofka ugu fududaado maxaa la dhahaa sheeg waxbarashada, markasta waxaa ka kormari karo qofka uusan u fududeen laakiin dadaal badan geliyey, juhdi badan geliyey, asoo si caqliyeysan wax u baranayo. midda u dambeyso waxaa waaye duceyso. waxaa jiro ducooyin badan oo maxaa la dhahaa ilaahay la weydiisanayo cilmiga. markasto waxaa isku daydaa salaadahaaga dhexdiisa ama maxaa la dhahaa sheeg subaxi markaa soo kacdid inaad dhahdid ducooyinka oo loogu talagalo cilmiga. waxaa kamid ah rabbi zidnii cilmaa, ilaahayow cilmi ii zaa'ide, ilaahayow cilmi isii. ma fahamtay? waxaa kamid ah allahuma inii as'aluka cilman naafican warisqan dayiban wacamalan mutaqabala. ilaahay waxaa weydiisanaysaa cilmi fiican inuu ku siiyo. ducooyin badanaa jiro oo hadda aan meeshaan kusoo koobi karin. marka waxaa samaysaa maalin kasto waxaa dhahdaa rabbi zidnii cilmaa, maxaa la dhahaa ilaahay ka bari inuu cilmiga kuu ziyaadiyo, sababtoo ah wax walba ilaahay gacantiisay ku jiraan. si kasta u dadaashid wuxuu ilaahay maxaa la dhahaa sheeg uu ku kasale helaysaa. waana ognahay qadarka wax bedeli karo inay duco tahay. marka ducada badsada insha allah. waxaa idiin rajeynayaa kheyr badan. maca salaama.